الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله waxaan dhexda kaga jirnaa maalmihii barakaysnaa ee fadliga badnaa ee nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sanadka maalmihiisa inay yihiin maalmaha ugu fadli badan amalka la sameeyana ugu ajir badan yahay allana ugu jecel yahay tabaaraka wa taala nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri amal saaliha oo la sameeyo sharti an yakuna saalihan عمل wanaagsan oo la sameeyo oo alla ka jecel yahay ma jiro amalka la sameeyo 10 kan bari waa bisha markay dhalato bilowgeeda ila 10 ka u horeeyo amalka saalix ee la sameeyo amal ka fiican oo ilaahay ka jecel yahay ma jiro waxay yiraahdeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim agtooda waxa muqarrar ka ahaa inuu jihaadku yahay acmaasha ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu fadli badan ee ugu qiimo badan markaas waxay yiraahdeen rasuulka ilaahay ma xataa jihaadka nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam xataa jihaadku ma gaari karo illa nin baxay oo xoolihiisa iyo naftiisa la tagay goobta dagaalka oo aan waxba la soo noqonin nafna la soo noqonin xoolana la soo noqonin ka mooyee inta kale noocyada jihaadka waxa ka fadli badan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam amal saalix oo maalmahan la sameeyay marka waa in looga faa'iideysto acmaasha khayrka qaybaheeda kala gedisan day sadaqadii tahay day soonkii tahay salaado la badsado haday tahay dikriga ilaahay tabaaraka wa taala takbiirta iyo tahliisha iyo xamdiga iyo tasbiixda adkaarta faraha badan ee nabiga amray sallallahu alayhi wasallam in la badsado maalmahan in aan ku dhex jirno sidoo kale waxa mudnaan leh oo si gooniya mudan inaan u tilmaano ayadoo maalmahan oo dhan soonku uu mashruuc yahay baa haddana wuxuu sii mudan tahay in la soomo maalinka sagaalaad ee bisha waa maalinta ay xujaydu Carafa taagan yihiin dadka aan xajka aadin waxa sunna ah maalinka inay soomaan nabigeennuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fadli siyaada abuu ku sheego wuxuu yiri maalinka soonkeeda waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ku dhaafo sanadkii tagay dambigiisa iyo sanadka soo socda dambigiisa laba sanad dambigood ayaa ilaahay ku saamaxaya sanad tagay iyo sanad iyada ka dambeeyo dib ka soo socda sidaas daraadeed waa fadiilo weyn hal maalin soonkeedo ajir inta lagu heleeyay wax sahlan ma marka waa fursad iyo qaniimo loo baahan yahay inaan ka faa'iideysano inaan dhaafin insha Allah ta'ala maalinta axad bay ku beegan tahay la soomi karaya maalmaha dhanna waa la wada soomi karaya biidnillaahi tabaaraka wa taala waxa kale oo cibaadada kale muhiimka ay tahay maalmahan inagu soo aadan waxa weeyaan waa salaada ciida nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mudnaan khaasusi waana shaciira iyo calaamo weyn oo kamid ah calaamaadka diinteena kamid labada ciidood ee laynoo jideeyay weynayntooda cibaadaadka ku dhex jira salaada ugu horeyso nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi noloshiisa kama tagin bal wuxuu amray in ummadda dhan u soo baxdo oo xataa dad aan salaadaha kaleba aan tukanaynin inay soo baxaan oo ka soo qayb galaan wuxuu amray nabigu sallallahu alayhi wasallam in la soo saaro gabdhaha yaryarka ee qaan gaaray oo aan guryaha ka bixi jirin oo meesha lagu ilaalin jiray alla soo saaro rasuulku sallallahu alayhi wasallam gabdhaha qaan gaaray oo wali la guursanin oo iyagana la asturi jiro guryaha ku asturnaan jiray wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam salaadaha loo soo saaro dumarka xataa caadada qaba nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ha soo baxaan oo ha soo saaro ha yimaadeen salaada ciidaha ka soo qayb gale xataa rasuulku wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo uu tilmaamay midii aan xijaab ay ku baxda lahayn walaasheed gabadh kale oo walaasheed oo muslimad ah xijaabkeeda ha weydiisato tanaha siisab rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi say u soo tukato sidaas daraadeed waa cibaado weyn oo mudnaanteeda leh
nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummadda amray ficil ahaanna uusan weligii ka tegin nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh culimmaduna ma waajiba mise waa sunno khilaaf ka dhex taagaya almuhim waxaa ina khuseeya inaynaan shaciiradaasi fududaysanin oon ka qayb gallo oo inaynu salaada la nimaadno cibaadada kale muhiimka waxay tahay mudan maalmahan inaynu baraarujinno iyadii axkaamteeda salaada ciida inta badan waa la yaqaanaa muddada dheer ee dadku tukanayeen axkaamteeda inta badan waynu garanaynaa laakiin cibaadada kale muhiimka waxay tahay udxiyada inaad wax qashood xoolo qashood gowracdo maalmahan wixii ka bilowda maalinka ciida Allah tabaaraka wa tacaala waa cibaado uu jecel yahay maalmahan cibaadaadka qaaliga ee fadliga badan ee ajirka badan bay ku jirtaa quraanka kariimka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu isku lamaaniyay salaada iyo neefka la gowracayo isku lamaaniyay salaada oo garanayno meeshay diinta kaga jirto iyo neefka la qalayo ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala isdaba dhigay nabigeennana waxaa la amray tuko xoolahana qal oo gowraca meesha dadka xajka jiraay ay hadiyadii iyo xoolihii ay halka ku qalayaan ayaa loogu talagalay dadka aan xajka taginna ayaguna inay meeshooda ku qalaano udxiyada ay gowracaan oo khayrkaas iyo wanaaggaasi lagala qayb galo qaybtaada aad qaadato nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi ciddii awoodi karto karaan leh oo aan wax qalin oo aan udxiyo samaynin salaada meeshaan ku tukanayna yuusan u soo dhawaanin qoyska kari kara waxaa la doonayaa in ay isku dayaan inay wax gowracaan ciddii aan kari karinin awoodeeda lahayn laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa kallifaad ma jirta laakiin ciddii kari karta waa inay la timaado waxaa xusid mudan nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu baraarujiyey bishu markay dhalato oo 10ka dilxija ay dhashaan bisha dilxija baan u jeedaa bilowgeeda markay bishu dhalato ciddii ku tala gashan inay wax gowracdo oy udxiyo samayso ilaa uu neefka ka gowraco 10ka bari timihiisana ma xiiri karo jidhkiisana waxba kama goyn karo إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذي طبنكو صوغلان وبشو دلت midkiina uu ku tala gashan yahay inuu wax gowraco xoolo qalo ilaa uu neefka ka qalayo yuusan timihiisa wax ka taabanin jidhkiisana wax ka taaban marka wax la doonayaa haddaad ku tala gashan tahay intaad neefka ka qalayso inaadan jidhkaaga waxba ka goyn cibaadadaasi waa cibaado weyn oo iyadana la doonayo in laga faa'iideysto insha Allah ta'ala waxay leedahay marka shuruud bay leedahay shuruudeeda waxa kamid ah ahkaamta la doonayo in la ilaaliyo neefka waxa la gowracayay waa inuu yahay xoolaha la dhaqdo waa inuu ama geel yahay ama lo yahay ama ari yahay arigaasi ama idaha noqdo ama riyaacad ha noqdo xoolaha la dhaqdo waxaan ahayn udxiyo ma galo quraanku macnahaas uu tilmaamay shardiga labaadi wax weeyaan neefka aad ku udxiyaysanayso waa inuu gaadhay da'dii uu ku gali lahaa udxiyada da'ba jirta khaasa oo nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam neef aan da'da gaadhin ha gowricina Allahumma inuu idinku adkaado da'diiba weydaan mooyaan oo markaasi bedelkeeda waxaad gowrici kartaan jadaca oo ida ah da'da laga hadlayay wax weeyaan nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam geela marka la yiraahdo neefku waa inuu 5 jir iyo wixii ka badan yahay lo'odana waa inuu 2 jir iyo wixii ka badan yahay riyaacadkana waa inuu sanad jir iyo ka badan yahay idaha buu nabigu si gooniyo u tilmaamay sallallahu alayhi wasallam hadduu ida yahay jadaca waa 6 bilood iyo wixii ka weyn hadduu ida yahay 6 bilood waa inuu gaadho iyo wixii ka weyn baad gowrici kartaa neefku marka waa inuu da'dii gaadho shardiga saddexaad wax weeyaan neefku waa inuu ka fayow yahay ceebaha neefka qiimihiisa hoos u rida neefku waa inuu yahay neef dhammaystiran oon ceeb lahayn saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri afar udxiyada ma galaan mana gudaan
afartaasi nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam neef illa isha cawaran inuu il cawaran yahayna iska cadahay il buu la yahay waxba kama arkayo ma gala udhiyada neef jiradiisuna cadahay asagana udhiyada ma galo neef naafa ah oo dhutinaya oo dhutintiisu ay cadahay asagana udhiyada ma galo neef caata ah oo weyd ah oo aan lahayn dhuux lahayn asagana ma galo neefku waa inuu neef yahay maraq leh oo waxoogaa hilib leh laakiin neef caato oo naf ah asaguna udhiyada gali maayo Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala isaguna wuxuu leeyahay nabigu wuxuuna amray xoolaha aad ku udhiyeynaysan waxaad ka fiirisaan indhaha iyo dhagaha ka fiiriyo waa inay dhagaha wax ka maqnayn shuruudaha waa inuu neefku buuxiyo shartiga xigaayi wuxuu yahay waqtiga aad gowracaysay waa inuu noqdo salaada ciida wixii ka dambeeyay ninba waqtigii nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu waagu bariyayba neefkiisii gowracay asagoo isleeyaan lagaaga hormarin khayrkan oo hilibka ugu horeeyay lagu waabariistay la cuno kaaga ha noqdo khayr doon ah ayuu neefkii gowracay nabigu uu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markaasuu ku yiri shaatuka shaatu lahmin neefkaad gowracatay waa un hilib walaysa min an-nusuki fi shay cibaadadii la rabay waxba kama aha waqtigii baad ka hormarisay sidaas daraadeed buu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo celi buu neef kale booskiisa gowrac marka waa in aad salaada ciida wixii ka dambeeyay gowracdoodan ka hormarin hadaad ka hormariso neefkaasi udhiya ma aha waxa inta weheliya xilliga jaaniska aan haysaneen gowrici karno waa maalinka ciida salaada marka la tukada laga bilaabo ilaa 3 bariya ka dambaysa maalmahaas ayuu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waa maalmo xoolaha la qasho hilbaha la wadho la cuno ilaahay la xuso la damaanshaado waa maalmo ciida way maalmaha afarta ah maalinka ciidiya 3 ka dambaysaba waad gowrici kartaa maalinkaad gowracdaba waa sax sidaas xadiista nabigeena ku sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi cibaadada qiimaha badan marka iyadana waa inaan ka faa'iideysano ninka iyo ehelkiisa qoyskiisa hal neef oo ariya ku filan kara hadaad ka badisana khayr iyo baraka todobada ruux waxay wadaagi karaan neef geel ah neef lo ana way wadaagi karaan todoba ruux intay wax isku darsadaan ayadana way sugantoo nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa cadeey arimahaas oo dhan waa ahkaamta loo baahan yahay inaynu ku baraarugsanaano marka aynu gudanayno udhiyada ama aynu neefku gowracayno waa cibaado qaali oo qiimo badan oo la doonayo in la nooleeyo meeshaada ku gowrac meel kale u dir oo dad kale u geeyo muxuu ahay meel masaakiin iyo dad kale joogan ama qaraaba joogto intaba way ku banaantahay hilibkeeda markaad qasho nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri hadaad rabto cun kaydso sadaqayso rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa dhacday xilligii nabigeenu noolaa sallallahu alayhi wasallam xilli waqti kamida maalin udhiya oo ciidani ay jirto ayaa abaari dhacday qoysas reebaadiye aba marka intay soo qaxeen oo soo guureen bay magaalada Madiina soo dul degeen duruuftuna way iska adagtay waxba lama haynin xilliga xoolihii la qashay buu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam 3 bari ka badan ma kaydsan kartaan 3 bari wixii ka dambeeyo wixii hilib ayuusan agtiin oolin bixiya علشان dadkan soo qaxay masaakiintan ila caawiyo markii sanadkii ku xigay la gaaray yey saxaabadu weydiiyay rasuulullaahi ma sidii baan yeelaa mise waxba isbedelay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxaan idin ku diiday kaydsiga 3 bari ka badan waxay ahayd dhibaatadii taagnayd iyo dadkii soo qaxay bay ahayd laakiin hadda nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam cuna kaydsada sadaqaysta rasuulku sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed waxna kaydso oo hilibkayda ka dhiga hadaad rabto waxna sadaqayso masaakiinta iyo dariska waxay gaari karto gaarsi waxna maalinkaaba cuno muxuu ahaayay barakayso
كل ذلك ويبنانت النبي إنك سجنت صلوات ربي والسلام عليه صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله